kusoo dhawaada mar labaad iyo barnaamijkeeni Kaalay Shaahi Lacab bulshada Soomaaliyeed meel kasta naga daawanaysiin si kasta noo daawanaysiinba dhamaantiin soo dhawaada waxaan leeyahay dhamaantiin insha soo qaata si aad noola qabsatiin mar labaadka maanta waxaa marti noogu ah barnaamijka walaalkeen Mukhtaar Abiib waa nin asbaran doontiin insha Allah Mukhtaar kusoo dhawaad marka hore barnaamijka waad mahadsantahay aad baad mahadsantahay barnaamijka soo dhaweyntiisa oo marka ugu horeysa wuxuu ku saabsan yahay mataqaanaa sayni sheegay shaah soo qaata marka anagu shaahna dhameynaba mar labaadka hadii iskiin baro Mukhtaar waa balin noocay Mukhtaar iskeen barbal aniga bulshada Soomaaliyeed walaalood mahadsantahay magacayga waxaa la yiraahdaa sidoo wiilku uu sheegay Mukhtaar Maxamed Abiib fiilan waxaan deganaa muddo ilaa 30 sano waxaan soo galay 19 bishii 1999 Soomaaliya sideedan waxaan kasoo tagay 85 bishii shanaad 88 Hargeysa markaas deganay oo kasoo tagay xamarna u deer baan joogay kadib waxaan mid Qaahira sanad markaa deganaa haddana waxaan mid ay suurta gashay inaan Russia Moscow saddex saac baan joogay kadib waxaan saasaan kusoo galay Finland marka muddo adigu 30 sano ayaan deganaa wadankan markii sharciga la siiyay waxaan bartay arrimaha bulshada muddo 22 sano ayaan ka shaqeynay xafiiska arrimaha bulshada ee Helsinki 6 sano ugu dambeysay iskuulada waxaan ka shaqeynay ku yaala dugsiyada hoose dhexe ku yaala muxuu ahaa xaafadda Foosaar dhammaantood anoo mar ahaa macallin markii labaadna noqday la taliye ما شاء الله intaan u leexan arrimaha mataqaanaa siyaasadda oo aan caaw u fadhino sidaan loo socon wadanka Finland waxaa ka bilaabanaya 7 bisha ilaa 14 bisha afraad 2021 mataqaanaa doorashadii wadanka Finland ka dhici lahayd walaalkan Abiib wuxuu sharaxay yahay kalaha deegaanka intaan u leexan arrimaha doorashada wal waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed mataqaanaa Abiib shaqooyinka uu qabto kale bal inuu noo sheekeeyo xiriirisa noo dulmaro saan u sheegay markii horeba muddadii aan ka shaqeynayay muxuu ahaa xafiiska socialka ee Helsinki laga soo bilaabo 22 bishii 12 1993 labadii sano ugu horeeyay oo aan la shaqeynayay reeraha Finishka mooyee intii dambe oo dhan waxaan la shaqeynayay dadka ajnabiga ah gaar ahaan dadka Soomaalida de kulley waan iska garanaysaa maadaama aniga asalkaygu Soomaali yahay maanta waxaan saari jiray familada Soomaalida ee dhibaatooyinka ay qabsadaan aniguna waxaan ka shaqeynay qaybta badbaadada carruurta marka mar walba waxaan isku dayi jiray hadday dhacdo in reeraha Soomaalida oo kale ay arrimahaas la soo gudboonadaan in xalka ugu wanaagsan aan la raadiyo anoo isticmaalaya reerihii iyo dadkii maamulka ay marka waxaa jirta reero fara badan oo Soomaaliyeed oo sababaha awgood carruurtoodii guryaha lagu kacayo xeryo la geeyay oo ii suurta gashay inaan anagu garbaha isaysan intaan dacwoonay inaanu reerihii usoo celinay kuwii xataa xeryaha la geeyay laftooda muddo markay ku jiraan aanu reerahoodii kusoo celinay marka wixii aan qabtay iyo hawlihii aan dadka Soomaalida usoo maray aad bay runtii u fara badan yihiin waana wax mataqaanaa aniguna marka qaarkood aan ku farxo dadkuna ay markay iga soo hadlaan ii sheegaan aad baad u mahadsantahay wanaaggan aad noo samaynayso de kulley waxa weeyaan inagu dhaqan baynu ka nimid dhaqankeenu waxa weeyaan waxa fiican qofku wuxuu isagu qabtay inuu sheego ma fiicna waxa fiican dadku inay ka sheekeeyaan marka kulley dadku way ka dharagsan yihiin intii haddaan iskuulada ka shaqeynayna waxa weeyaan anigu mudnaanta goobaad waxaan saaraa ilmaha yararka iskuulada dhigta hadday la kulmaan carqalad ama dhinaca waxbarashada ama dhinaca kale cunsuriyadda oo kale inaan garabkooda istaago wixii aan la qaban karo aan la qabto dugsiyadan ku yaalla muxuu ahaa ii sheegay Helsinki intooda badan waa lagala soo hadlaa laakiin de anigu maadaama aan Foosaar ku qoranahay waxaan isku dayay carruurta Soomaalidu dhigatay iskuulada inay si wanaagsan uga baxaan dugsiyada hoose dhexe isla markaasna mataqaanaa shahaadooyin fiican ay helaan ما شاء الله Mukhtaar adoo mataqaanaa bulshada arrimahaas oo dhan u haya bal haddaan yar aan kula kaftamo maxaa ku kayfay inaad siyaasadda kusoo biirtay waa su'aal fiican weeyaan walaal siyaasad anigu waxaan hadda ka horna waan sheegay haddana waan sheegayaa anigu ehelkaygu iyo dadkan ka dhashay dad siyaasad ku jira ma aha dad siyaasad xiiseynaya ma aha laakiin walaal waxa weeyaan muddadii aan socialka ka shaqeynayay iyo intii aan iskuulada ka shaqeynayay waxaan arkay waxyaalo fara badan oo carqalada oo shacabkeena magaalada degan haysta ama gobolada degan haysta oo marka haddii aanan meelihii ku jiray maamulka laga hayay magaalada ama dadkii markaa go'aanada gaadhay aan ku dhex jirin aysan waxba inoo suurtagelin sida iminka markaad fiiriso tusaale oo kale dugsiyada hoose dhexe carruurteena Soomaalidu ilaa 7% way ku adag tahay inay ka baxaan inkastoo aan iminka dadaal badan oo sameynay
ay noo suurta gashay inaan foosari oo kale aan ku guulaysan inuusan qofna ku harin iskuullada. marka waxa weeyaan waxyaalahan oo dhan waa waxyaalaha loo baahan yahay marka xisaab xidhka la sameeyo magaalada in uu qof u gudbiyo uu yidhaahdo dad noocaas ay magaalada way degan yihiin oo dhibaatooyin noocaas ay haystaan. ta kale intaan socialka ka shaqeynaya lafteeda waxaa loo kulmay waxyaala fara badan oo reeraha soomaalida kusoo socda oo kale ama dhaqanku ha keeno dee ama mataqaanaa nidaamkii oo ka duwan ha keeno. marka waxaan isiri dee meelihii haddaad u joogto u fadhido waxa weeyaan waxyaala fara badan baad wax ka duwi kartaa. iminka haddaan meeshii ii suurta gasho oo kale waxyaalaha mooshinada aan wada waxaa ugu horeeya in hadday dhacdo in ilmo soomaaliya gurigiisa laga kaxeeyo oo kale aan la geyn xere loo geeyo dad soomaaliyeed oo mataqaanaa dowladdu markaa ama magaaladu ay ku ilaaliso dee dhaqaalahoodiina ay halkaa ku bixiso si ilmihii dhaqankiisi iyo diintiisii uusan uga tanaasulin. marka waxyaala fara badan baa igu kalifay aniga inaan siyaasadda aan lugta la galo. haddaan usoo leexano arrimaha siyaasadda iyo doorashada soo socota waxaa nooga waran tahay xisbiga oo sharaxan tahay goorta doorashada dhacayso iyo mataqaana abaabulka doorashada ku saabsan. mahadsan tahay. xisbiyada wadankan ka dhisan waa ilaa adigu 8 ilaa 9 inay yihiin baan jeclahay. aniga xisbigan aan ku jirana dee kolley waxaa la yidhahdaa kokomus waxyaalaha igu kalifayna waxa weeyaan waa dhowr arrimood. ta koobaad waxa weeyaan eeg anagu dad masaakiin aanu nahay meeshana waxaan u nimid inaanu mataqaanaa danta nada raacano gaar ahaan jiilkan dambe iminka wadankan noogu dhalanaya anigu mudnaantaan saaraya waxa weeyaan ilmihii inay wax bartaan oo shaqaystaan oo ummadda ay dhinaca ka galaan. dadkan waxay samaysteen dastuur ah haddii qofku uu ilmo yar yahay ama uu xanuunsanayo ama qof waayeela uu yahay ama qof xanuunsanaya ama de qof dee sidii kale isagoo aan markaa isu kalkaalin karin in dastuurka la samaystay dad dowladdii ama nidaamka uu xanaaneeyo. laakiin dadka kale shaqooyin loo abuuro waxna marka hore wax la baro shaqooyin loo abuuro ummadiina de marka ay ka dhex muuqdaan. marka anigu dagaalkan ku jira ama halgankan ku jira waxa weeyaan inay mustaqbalka dhacdo in carruurteena soomaaliyeed ay ka dhex muuqdaan dadka oo noqdaan dad wax bartay oo dad shaqaysta ah. ta kale xisbigan waxyaalaha lagu jira waxaa kamid ah waxyaalahan haddaad diinta fiiriso oo kale waxaa jirta waxyaalo dee shirkiba lagu geli karayo laakiin xisbigan aniga ay leeyihiin wixii ii sheeg ku saabsan arrintaas waa arrin adiga aad u madax bannaan tahay saad rabtaanad ka yeeli karta. laakiin xisbiyada kale waxaa laga yaabaa maadaama ay mabaadi'du kuwa qoran tahayba haddaad saxiixdo inaadan diidi karin. taasina waa midda kale igu kaliftay. iyo sidoo kale de in ummadda canshuurta ayaa lagu baabiin qofku markuu shaqeeyo in wixii uu qaadanayayba haddii canshuur looga qaado waa mashaakil. marka aniga xisbigeyga wuxuu aaminsan yahay qofku wuxuu shaqaysanaya usoo haraya ha noqdo wuxuu noloshiisa ku kabi karo reerkiisana uu ku masruufan karo. waxyaala fara badan oo noocaas ay igu kalifta. kale igu kalifta waxa weeyaan xisbigan kuma arkayaan qof ajnabi waxay ku arkayaan qof bini aadam ah oo dee waxna qabsan kara ummaddiina wax kusoo kordhin kara isagana wax lagu soo kordhin karo. marka kuma tafaruuqayaan kama dhigayaan qof iyagii ka duwan. waan garanay doorashada goormay dhacaysaa. inkastoo koronadan awgeed lagaba yaabo doorashada in dib loo dhigo laakiin dee waqtiga ay dhacaysaa waxa weeyaan haddaan waxba la isbedelin kolley waan ogaan doonaa beri ilaa saadan waan ogaanaynaa. doorashadu waxay dhacaysaa waa 2 qaybood. qaybta hore oo 7 cisho ah iyo midda ugu dambeysa oo iyadoo 1 maalin ah. waxay bilaabanaysaa marka haddii ilaahay caafimaad iyo cimri nagu gaarsiiyo 7 bisha afraad waxayna dhammaanaysaa 13 bisha afraad. marka 7 cisho waxaa yani qof walba u suurtagala magaalada Helsinki u degan meel walba inuu ka codeyn karo meel walba magaalada ku taalo laga codeynay marka uu ka codeyn karo 7 cisho. laakiin maalinta ugu dambeysay 18 meesha warqadii loo soo tuuray ku qorneyd mooye meel kale markaa kama codeyn karo. marka dadka waxaan kula talinayaa hadday suurtagal tahay 7 cisho inay ka faa'iidaystaan mataqaanaa iyagoo xataa cunto dukaanka u doonanaya ama salaada u socda inay library ku leexdaan ay saas ay ku codbixiyaan. dadka codeynaya marka ama dadka baasaboorka haysta dhalashada wadanka Finland baa mise waxaa codeyn kara. maya ma aha dadka baasaboorka dhalashada haysta waxaa codeyn kara qof kasta oo magaaladan degan oo sharci haysta ayaa codeyn kara. laakiin marka la dooranayo baarlamaanka waxaa codeeya Soomaaliya dadka dhalashada. baarlamaanku isagu uu ka duwan yahay. baarlamaankan kii baarlamaanka ma aha waa kii deegaanka. marka ka deegaanka qof kasta oo baasaboor sharci wadanka ku leh wuxuu doonaya baasaboorkiisu haysto yaa codeyn karaya. marka kan isagu baarlamaanku waa 2 sano kadib kaasaa lahana gaarsiiyo kaa isaga waxaa codeyn karaya oo keliya qofkii dhalasho haysta. waxaan kaloo rabaa inaan su-aal mataqaana dad badan Soomaaliyeed oo mataqaana qaarkoodna soo weydiiyeen mataqaana ani lafteeda xitaa iyagu waxaysa isaan loo socono dadka Soomaalida dad ma aha codeeya inta badan codeeya. waxaa laga yaabaa nin wadanka 30 sano joogay weligiis uusan codeyn ama cod uusan aadin. muhiimadda mataqaana qofkaas codkaas guriga la fadhiyana waxaa laga yaabaa hadhow hadduusan codeyn inay mataqaana isaga ay dhibto. sidaan loo socono musharaxiin kala jiro soo sharaxay sida hadda la socdo Helsinki ilaa hadda waxaa soo sharaxay 4 musharax. ma isleedahay codka waa u qaybsamay 4 musharax oo kale iyo dadka magaalada Helsinki degan.
walaal doorashadu iyadu way iska dhib yartahay. waxa weeyaan horta dadkan sharaxan de xisbiyadani waxa weeyaan iyagu dad bay soo sharxayaan, dadkana ujeeda usoo sharxayaan. laakiin waxaa nasiib daraa in xisbiyada qaarkood inagii Soomaalida ahaa oo tiradeeniba badnayn inay intaasoo qof ay soo sharxaan. markiiba waxaa ku cadaanaysa in ujeedada dad meeshan laga wata ay tahay inay dadkii kala jabiyaan. waayo haddii ay dan ka leeyihiin dadkii waxay oran lahaayeenba war bal adigu qofkan ku eegaynaa bal loo kaadi qof kale mataqaanaa bal sug. marka iyagu ujeedadoodu waxa weeyaan marka in aynay cod ay ka helaan dadka marka loo baahan yahay inay fikiraan oo ay ka fikiraan iyagu dantu waxay ugu jirto. ma jira mataqaanaa qof dadkan Soomaalida tafaraaruq ku dhacay sababtu waxay doonaysaa waxa ahaatee matali kara oo mataqaanaa daacad ah oo karti leh waxna bartay dadkana la jaan qaadi kara cadkoodana usoo dhicin kara inuu jiro. iyagu waa inay taa ka fikiraan weeyaan iyagoon eegayn yani cuduradii wadankeeni naga keenay anigu imika waxba halkan kama oranaye. waa inay iyagu ka fikiraan. haddii markaa qofku uu codeyn waayo dee markaa xaq uma yeelanayo inuu calaacala ama qof inuu eedeeyo ama xisbi inuu eedeeyo. waayo dee mabaanu ka qayb qaadanba. waayo dadka finishku waxay dhahaan haddaadan codayn dee afkaaga xidho waayo meeshan kuma balihid xuquuq markaa. laakiin haddaad codayso waxa weeyaan waxaad u yeelanaysaa xaq inaad qofkii hataa codka siisay inaad la hadli karto dhihi karto arrimahan bal ka waran maxaad ka tiri maxaadse ka oranaysaa. marka waxa weeyaan anigu waxaan kula talin lahaa dadkan inay codka ay bixiyaan. waana ta keliya ee mataqaanaa aynu mataqaanaa kusoo saari karno ama ku raadsan karno dee wixii aad markaa idinku raadinaysaan oo ah in guryahan dhibaatadu ka haysato wax laga sheegi karo oo laga hadli karo, in xanaanooyinka iskuulada dhibaatooyinka naga haysta laga hadli karo, in socialkii ama caafimaadkii oo kale dhibaatooyinka naga haysta laga hadli karo. marka haddii adiga aadan qofba geysan meeshii qofku iska geysan maa qof kartila aadan geysan wax fahmaya waxa weeyaan waxaad ku hadashaa markaa waa gardaro kalena mataqaanaa su'aalaha qaar dadaa hoos igu soo qoray. maanta waxaan soo gudbiyay mataqaanaa wareysi ka qaaday walaalka Habiib. dadaa mataqaanaa hoos su'aala igu soo qoray marka waxaan isku dayay inta macquulka ahaa maaragta ma u filin intaas qof inay su'aalahaas ii soo dirayaan. laakiin waxaan isku dayay inta macquulka mataqaanaa xooga su'aalihii xooga asublaysan inaan mataqaanaa aan su'aalo sidaan loo socono. Soomaali badan halkan degan waxa lagu sheegay inay 20,000 ka badan yihiin. qaarkood waxaa la yidhaha 10,000 ku dhawaad ama 7,000 dhalashada way haystaan. maxaa noo diiday mataqaanaa wadamo mataqaanaa dad ahaan naga yar baa baarlamaanka Finland waxay ku leeyihiin shakhsi sida waddanka gabar Afghanistan oo kale iyo bal maxaa noo diiday in mataqaanaa aanu helno Soomaali haddaan nahay qof aan wada codeyn karno mataqaanaa saan usoo saarno magacaas ka raadino. walaal su-aasha mar horena waa la weydiiyey haddana waad ku mahadsan tahay. waxa weeyaan sidii tii hore aan uga jawaabin baan tan uga jawaabi. inagu horta waxa weeyaan ummadaha kama liidano kamana aqoon xumin dad mataqaanaa dee xun ma nihin. laakiin problemka ama dhibaatada anigu saan u arko waa laga yaabaa dadku inay iga fikrad duwan yihiin. saan u arko waxa weeyaan ilaa hadda waxaynu fahmi la'nahay meeshan aynu ku noolnahay marka ama Finland ha ahaato ama waddan kale ha ahaato qurbaan aynu joogno sababtiina keentay. yani qofku markuu fahmo sababta keentay dhulkan oo qeexitaan u helo ilaa waxa weeyaan haddii macalinku ku yidhaahdo xisaabtaa ka shaqey haddaadan haysan nidaamkaad mari lahayd xisaabtii kama shaqeyn karaysid. marka waxa weeyaan innagii weli waxaaba inaga maqan buu inu fahmi la'nahay. okay Finland baan ku noolahay waayo maxaa Finland keenay marka qofku wuxuu heli xalkii. waxa weeyaan dadkan kale inagama fiicin laakiin midda inagu dhaamaa waxay tahay haddii siyaasadoo kale ay harkaan qof nidaamkii fahamsan wax bartay oo yani hore u soconaya dadka la jaan qaadi kara way ku garab feelaan dabadda xagga dambe ka istaagaya qofkii qof kale kama daba keenaya. innaga laakiin dibka jira waxa weeyaan waa la isku dayanaya waxa weeyaan qofkii dadku hayso soo wada sharxaan wixii day soo sharxayaan labadiid kale waddanku waa waddan dimuqraadi ah laakiin mas'uulku wuxuu saaran yahay shacabka. dantu maxay inoogu jirtaa shacabkay saaran tahay. dadkii halkaas ay taagan yihiin waa la is wada yaqaanaa waddankan wayna is wada naqaanaa. qof walba profile buu leeyahay merid buu leeyahay qof walba. ilan qofku markuu siyaasadda uu gelayo waa qof wax isku ogo wax soo diyaariyay yani
wuxuu isleeyahay waxbuu gocanaya, wuxuu isleeyahay wallahi haddaad meeshan tagto dadkan hor istaagto dee dadkii wax un bay kugu taageeraan ama kugu diidi. marka waxa dadku inay iyagu dadkan ay eegaan wey. qof walba waa la yaqaanaa waddankan, qof aan la aqoon ma jiro. iyagay u taalaa, shacabkay u taalaa inay yidhaahdaan war 30 sanaynu joognaa, enough is enough, inagu filantan waxba ma tarayso, dadkii kale wayna dhaafeen, maxaa tala ah ama deegaan ha noqoto ama baarlamaan ha noqoto, maxaa inaga inoo tala ah oo qolyaha culimaa diinka, waalidiinta, dhalinyarada, caruurta kulligood ay wada fikiraan. laakiin haddaynu wadno cudurkii iyo mataqaanaa kansarkii waddankii naga keenay dee halkii un baynu taagnaanayna, kuwii aan ku dhalnay waddankana halkii un baynu taagnaanayna. marka dhibka ina haysta waa kaas weeyaan. waa mahadsan tahay jawaabtaas. dadka Soomaaliyeed way wada maqlayaan. Abib, meeqa cod baa lagu soo bixi karaa golaha deegaanka markaa fiirisid, mise waxay ku xiran tahay xisbi kasta? maya, xisbi kuma xidhna. waxay xisbi mid way ugu xidhnaan kartaa. Helsinki kolley xisbigu hadduu yar yahay qofkii cod badan baa laga rabaa. xisbigu hadduu weyn yahay macnuu waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inay fikirro ku jiraan cod badan keena, marka waxaa laga yaabaa qofki inuu cod yar kusoo baxo. Helsinki qofku hadduu 800-900 oo cod helo khalaas wuu soo baxaya. 900 oo codna wax badan ma aha dadkeena markaad eegto. aniga iminka xisbigayga oo kale hadaad eegto 4 sano ka hor qof baa wuxuu helay 30 kun oo cod, marka dad baa waxay kusoo baxeen 600 oo cod. anigu soo jiidaya qofka, marka anaga ankayagu mar walba wuxuu ku reeyay maadaama magaaladan ilaa 1940kii ayagu ay ka koobaad ahaayeen oo maamulka iska haystaan, waxa weeyaan inta badan waa la isjiidaa, codka waa la jiidaa. marka qofka hadduu 800-900 helo yani meeshii uu galay. adigu maxaad rajeynaysaa sanadkan doorashada? wallaahi dee wixii horta khayrku ku jiro allahu yaclam, ilaahay baa garanaya. dee mar walba on tukadana ilaahay waxaan ka baryaa un meeshan aan u ordayno, ilaahay baa garanaya inuu khayr aniga igu jiro in kale. hadduu khayr igu jiro ilaahay ha ii fududeeyo. laakiin markaan iminka dadka la sheekaysto, dadka ila soo hadlaya aan fiiriyo, oon isbarbar dhigo campaignki ama halgankii aan ku jiray 4 sano ka hor iyo kan, farqi weyn baa u dhexeeya. waayo dad badan oo Soomaali ah oo gaar ahaan hooyooyin u badan, dhalinyaro u badan, dad culimaa diin ah ayaa nin walba maalinayso ila soo hadlaya uu leeyahay halgan baan kugu jirnaa, diyaar baana ku nahay inaan ku caawino. marka waxaan aaminsanahay biidnillahi kariim ilaahay baa garanaysa noqonayso insha allah inay khayr noqonayso. waxaan kaloo rabaa inaan ku su'aalo dad kalena daawanayaana si fiican ula socdaan ay maqlayaan. su-aal laysoo weydiiyo, su-aal mataqaana laga soo diro la yiri mataqaana siyaasi balaabi buu weydiiyey. dad badan oo Soomaaliyeed mataqaana arrinkaas hore la isku dayay, mar la isku dayay jirtay haddana ay socon weyday. waxaa la bal siyaasiyiinta tartamaya in tusaale ahaan oo kale programkan hadda in adigan kuu soo casuumo, siyaasi kalena ku soo casuumo, si mataqaana labadiina dood wadaag aad u gashiin, bal arrinka diyaar ma u tahay? anigu Helsinki baan deganahay. si fiican. waqti kastoo aniga la ii yeelo dee anigu sidii kolley nidaamka laygu soo baray aniga waan imani, waxa waan ku diidaya ma jiro. dee diyaar baan anigu waxba kama soo horjeedsanay, inkastoo dee hadda waqtigan koronada lagu jira iska dhib badan tahay, laakiin ma diidaya anigu diyaar baan. ma waa arrin fiican. bal haddii bal waxaydiisaan ka nasano dhinacaas iyo siyaasadda, adigo maxaa is leedahay inkastoo dadka mataqaana aad ku dhex jirtid, mataqaana fahmiyada aad ku dhex jirtid aad caawisid, waxyaaba badan oo inaga khaldan way jiraan. bal dadka Soomaaliyeed ina daawanaya waxyaabaha inaga khaldan, ama iskool hadday ahaato ama system kale mataqaana fahmiyada ha ahaato ama fahmi propaganda ha ahaato, maxaa inaga khaldan is leedahay oo mataqaana tilmaami lahayd oo inaad iska saxna ay tahay? horta haddii aynaan wax isu sheegin oo aynaan mataqaanaa aynaan dood samayn oo aynaan hadal ina dhex marin, horumar ma gaadhin. midda kale waa inaynu diyaar u ahaanaa in qofku uu ka odhan karo anugu fikradana wadato waan kaa soo horjeedaa. laakiin dantu waxay ku jirtaa hadduu kaa soo horjeedo inuu kuu sheego oo ku yidhaahdo sababtan iyo sababtan kaaga soo horjeeda. marka macnaheedu ma aha qofkaasi inuu adiga cadow kugu yahay, fikrad maad ku kala duwantihiin laakiin waa walaalkaa. horta taasi way naga khadiban tahay. waxa weeyaan dadku midda kale anigu aan arkay waxa weeyaan iminka adiga walaalkayga hadday wareysanaya, haddii aynu mataqaanaa haddaad
hadduu qof kaloo Soomaaliya uu idinka dhexeeyo wax idinka dhexeeyo khilaaf idinka dhexeeyo oo qofka kale aniga aan isnaqaano saaxiibanahay adigu marka aniga inaad ii aragta ma ii sheegay cadow ii ma aragta marka khaladaadkeenu sameeyna taas ka mid ah waxa weeyaan haddii labadiina wax idinka dhexeeyaan idinku soo hagaajisto intaad meel fadhiisataan idinku soo heshiiye laakiin aniga isaga waxba nagama dhexeeyo marka adigu aniga cadow ha ii arkay taasna waan ku arkay midda kale aan jirta waa waxa weeyaan muddada aan shaqaynayay waan u sheegay dadka waalidiinta gaar ahaan waxa weeyaan walaal iminka finishku waddankan degan hadday maanta Suudaan u guuraan caqligal ma aha istiraatiijiyadii Finland ku noolaayaan inay u suurtagelayso inay ku noolaadaan Suudaan waa inay wax ka bedelaan walow iyagoo waxba kala fogeen oo isku dhaqanaa oo laga yaabo luqadii inay yaqaanaan waxbarashadii ay jirto oo kalarkii uu ka duwaneen oo sina aan lagu takoorin haddana waxa weeyaan istiraatiijiyada halkan ay ku barteen halka kama soconayso marka waxa weeyaan inagu waa inaan fikir ogaanaa nidaamkii iyo wixii aan methodkan isticmaali jirnay waddankeena halka kama soconayo marka waa inaynu raadinaa istiraatiijiyadii ama nidaamkii waddankan aynu ugu noolaan lahayn inagoo dhaqankeennii iyo diinteennii iyo nidaamkeennii ku ah muxuu ahaa broad oo jecel oo ku faanaya laakiin waa inaad nidaamka waddankan isku daydaa inaad fahamto yacni waa nasiib darro qof 30 sano jooga waddankan oo ama luuqadii aaban garanaynba iska bedaa dhaqan kale iyo oo hataa qof waddankan u dhashay aan xiriir lahayn waan ogahay anigu dadkan finishku dad sahlan oo nala saaxiibi kara ma aha laakiin ummadoo dhan ma wada xuma kolley qof u wad heli ama shaqada isku barata ama si kale isku barata waxaa laga yaabaa qofkaas inaad waxyaalo fara badan ka faa'iidaysto isaguna uu kaa faa'iidaysto marka ummaddu hadday saa isu dhex gasho waxyaalo fara badan baa yaan ka faa'iidaysan kari lahayn oo hagaagi lahaa markaan waxaan odhan lahaa idinkoo dhaqankiini haysta oo diintiini diin lagama tegi kara iyada haysta haddana bal isku daya nidaamka waddankeena wax ka fahmta waa arrin fiican oo waana fiican oo dhammaantiin uga baahannahay inay tahay adaa habiiba ku watee waxaa jira dadka Soomaaliyeed oo sanadahan soo batay mataqaanaa in qof aanan ku aqoonin oo weliga ku arkan oo kula sheekaysan oo hadal kula dhex marin ku dhahayo ninkaas waa necba marka dhahdeen miyaad istagaasheen mise waxa weyn dhex maray inuu yiraahdo may wala sheegay marka Soomaalidu taas iska dhaafaan tan kale hadda jirtana waxay tahay laba qof hadday islaayaan oo mataqaanaa uu kugu arko qof kale islaayeen inaad la socotid ama mataqaanaa saaxiib la tahay wuxuu ku qaadayaa colaad maaragtay aan habbooneen oo mataqaanaa taa qorsheynba laba qof is haysta idinkaas haysta qof kale isma haystaan marka arrinkan bulshada Soomaaliyeed ku soo laalaabatay hadday meel kasta ahaan siyaasad sport wax kasta marka taasna ha laga waantoobo abay barnaamijkeena soo gabagabo noo ah maxaad ku soo dari lahayd laahay anigu kolley dadkayga Soomaalida waan jeclahay Soomaalinimadeydana waan ku faanaa ummadana la noolahayna waxaan jeclahay inaan fahmo oo wax ka garto waayo haddaanan iyagii wax ka fahmin oona ka garan ummadayda waxba uma qaban karayo shaqadan aan ka shaqeeyana kolley intaan noolahay halkan aan deganaan shaqaynayo waxaan isku dayayaa waxa la wixii aan ka caawin karo dadka inaan ka caawiyo ilaahay baa caawimaad haya laakiin inaan si sharaf leh oo edeb leh meeshan joogo ku matalo iyagana wixii aan tari karo aan talo taladaan siinaya kaliya waxa weeyaan ha isku mashquulin iminka tusaale ahaan markaad eegto magaalada waxaa ka sharaxan ilaa 1000 qof oo nasiib darro in afarta Soomaalida mataqaanaa sharaxan sidii basaliya ay sii jiitaan meelaha isku hayaan marka waa yani waa inkar waa dhibaateyn haysato weeyaan waxa weeyaan mid kale anigu qof kastoo bini aadam anigu ma qancin karo ilaahayga abuuray baa qancin waayay qancin kari waayay marka waan isku day laakiin anigu inaan idin dadaalo oo aan at least ugu yaraan fariintiina inaan si toos ah meesha isku geeyo qalbigeyguna waa nadiif anigu waxaan qarsanayaa ma jiro oo mataqaanaa colaad aan qof Soomaali anigu waxyaa ma jiro hataa kuwa aniga igu kacsan waan soo dhaweynaya qof kastoo cod isiiya iyo kiyaan codba isiin meelan ku kala harayna ma jirto marka aniga cadow ha ii arkin anigu cadow ku arki maaye mid kale hadii lagu yiraahdo hebel baa saasa anigu kulli waxaan kugula talin lahaa inaad qofka raadiso waa hadda tusaale ahaan waxaan ku siinay gabadh baa habeen dhow Facebook aan ku jira meel baan fadhiyay qaab maqaaxin ka daawanay gabadh baa soo kor istaagtay markaas waxay igu tirbeetay walaal ninkan hadal khalad ah iga sheegay laakiin ninkan waxa soo ogaaday inuu ka ugu roon yahay dadka marka anigu iyo familkayga ninkan codka waan siinay anoo ka wadaa adigu wixii la wiilow ha iska qaadanin mid kale bini aadam ma qancin karto waxa weeyaan saad u sheegtay walaal waxa weeyaan dad un baa iskaga ka sameeyay laakiin anigu markaan naftayda ka hadlo
anigu qofna kuma sanifayo, qof walba waan soo dhaweynaya. mukhtaar aad baad u mahadsan tahay sida barnaamijkan mataqaanaa loo soo qayb gashay. insha allah marka la rajeynaya inaad timaatid. Aad mudan, aad baad u mahadsan.